asalaamu calaykum. shiinaha waddanka maanta ugu dadka badan dunida waddan markii loo fiiriyo meel ay ku nool yihiin 1 bilyan iyo ku dhowaad nus bilyan qof. waa dad ka badan inta ku nool qaaradda Afrika oo dhan. haddaad maqasha magaca shiinaha waxaa niyadaada ku soo dhici dad sidii quraanjo oo kale iyo badeeco badan ay ku qorantay made in China, waana arrin xaqiiqi ah. waa waddan ay ku yaalaan magaalooyin ay ku nool yihiin dad ka badan waddamo badan oo caalamka. magaalooyin mid walba ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof. haddii aan xamar iyo hargeysa u naqaano magaalooyin waaweyn, tuulo dhowr qof ku nool yihiin ay ka noqoni shiinaha. maanta halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa xaqaa'iq kala duwan oo ku saabsan waddanka shiinaha. ku soo dhowaada mawduuceena maanta. shiinuhu wuxuu ka kooban yahay 22 gobol, halka Hong Kong iyo Macau ay leeyihiin xukun hoosaad sarreeyo. waddanka intaasoo qof ay ku nool yihiin waxaa dabiici ah inuu aad u ballaaran yahay bad ahaan. waana waddanka afraad ee ugu dhulka weyn waddamada caalamka, bad gaarayo 9 milyan oo kilomitir iskuweera. shiinuhu wuxuu leeyahay xeeb aad u dheer oo taxan masaafo gaaraysa 14,000 oo kilomitir, kana soo bilaabata xuduudka Vietnam lagu geeyo xuduudka waqooyiga Kuuriya. waana inta badan qaybta bariya shiinaha ee kulaalaysa badda. shiinaha waa dhul ay ka jireen xadaarada kala duwan, gaar ahaan daafaha webiga lagu magacaabo webiga Jaalaha oo ay daafihiisa ka dhalatay xadaarad waqti laga joogo 6,000 oo sano. dadka booqda waddanka shiinaha waxa ugu horreeya ay tagaan waa derbiga weyn ee shiinaha oo ah khad difaaceed aad u dheer, la dhisayna 2,000 oo sano ka hor. waa derbi la yaab leh oo ah silsilad aad u dheer oo dhex mara buurale iyo togag iyo dhul aad u qallafsan juqraafi ahaan. dhererka derbigan wuxuu gaarayaa 2,400 kilomitir. waxaa la isweydiinayaa awoodda dhistay derbigan la yaabka leh wakhtigaas aadka u fog ee kumanaanka kilomitir taxan ee leh taalooyin ilaalo dhowrka kilomitirba. xilligii la dhisay oo ahayd 2,000 oo sano ka hor ma jirin aaladaha wax lagu dhiso. haddaba waa hal xiraale aad u adag dhisida derbigan. waa buug furan oo ku tusinaya taariikhda shiinaha iyo dadaalka dheer ay shiinayskii hore bixiyeen iyo dhididka ka baxay si ay uga tagaan raad taariikhda galo. shiinaha waxyaabaha uu caalamka ku soo koriyay taariikhaan waxaa ka mid ah warqadda, baaruudda, jiheeyaha, lacagta warqadaha iyo waxyaabo kale oo badan. nidaamka maanta ka jira shiinaha ama magac cusub ee loo yaqaana maanta shiinaha ee ah jamhuuriyadda shiinaha ee shacbiga waxaa la asaasay 1949kii kadib markii shuuciyiintu ay ka guulaysteen ciidankii lagu magacaabi jiray Kuomintang ee uu hogaamin jiray nin lagu magacaabo Chiang Kai-shek oo u cararay jasiiradda Taiwan. wuxuuna halkaas uga dhawaaqay jamhuuriyadda waddaniga ee shiinaha. waana arrin ilaa maanta natiijadiisu taagan tahay oo ah in Taiwan diidan tahay xukunka Peking, halka shiinuhu dhowr jeer ku goodiyey inuu si qasaba Taiwan ugu soo dari doono dhulweynaha shiinaha. laakiin muddooyinkii u dambeeyey waxaa socda isu soo dhowaasho labada dhinaca, waxaana yaraaday khilaafkii siyaasadeed. dhinaca dhaqaalaha, shiinaha waa waddanka caalamka oo dhan ugu horreeyay dhinaca dhoofinta alaabta uu sameeyo. waxaan aad u wada naqaanaa kelmadda made in China waxaa lagu sameeyey shiinaha, taasoo ku tusinaysa malaayiinta waxa shiinaha lagu sameeyo. 2011 shiinuhu wuxuu noqday waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka kadib markuu dhaafay Japan oo kaalintaas ku jirtay muddo aad u dheer. waxaa la sheegaa Maraykanka in qoys Maraykan isku dayay in uu muddo noolaado ayagoona isticmaalaynin wax shiina lagu sameeyo, laakiin ay suurtageli weyday. Maraykan ayaa ka maarmi waayey waxyaabaha shiinaha lagu sameeyo. dhinaca bulshada iyo deegaanka, dhibaatooyinka shiinaha haysta waxaa ka mid ah farqiga dhaqaale ee u dhexeeya dadka magaalooyinka iyo kuwa miyiga ama beeralayda, taasoo keentay in malaayiin reer miyi iyo tuulaley ah ay u hayaamaan magaalooyinka waaweyn sida Peking. sidaas darteed shiinaha waxaa caadi ka in la arka tuulooyin haawanaya, xitaa waxaa jiro magaalooyin waaweyn oo laga guuray oo cidla. dadku waxay aadeen magaalooyinka waaweyn ee fursadaha shaqo leh. magaalooyinka shiinaha ee malaayiinta qof ku nool yihiin ee kumanaanka warshadna ku yaalaan waxaa dabiici ah inay ka dhalato cimilo xun iyo jawi wasaqaysan. waana mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee haysta shiinaha, wasaqowga hawada. haddii aan mar ka sheekaynayna shiinaha, waxaa laga maarmaana in aanan hilmaamin qadiyadda East Turkistaanta bari. laakiin maanta ma ahan. insha Allah mar ayaan ka diyaarinaynaa mawduuc dhammaystiran qadiyadda walaaleen muslimiinta ee goor ku nool Turkistaanta bari ee shiinuhu xooga ku haysto. aan u soo gudubna dhacdooyin taariikhi oo ka dhacay shiinaha.
intii u dhaxaysay 1700 ilaa 1046 ka hor qiyaastii dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Shiinaha waxaa xukumi jiray qoyska Zhang, waana dowladdii ugu horreysay ee la diiwaan geliyo taariikhda Shiinaha. 1644 miilaadi, xukunka Shiinaha wuxuu galay gacanta qoyska lagu magacaabo Manchu. 1911 waxaa Shiinaha ka qarxay kacdoon hubaysan keenayna aasaasidda Jamhuuriyadda Shiinaha, waxaana xigay dagaal sokeeye lagu hoobto. 1931 Shiinuhu wuxuu ku jiray xaalad kala qaybsan iyo tabardarra, taasoo keentay in Jabaanku duulaan ku qaada Shiinaha qabsadana, dadka Shiinahana ka dhigo adoonsi qasab ugu adeego ciidanka Imbaradoriga Jabaan. Shiinihii intaasoo xadaarad lahaa, malaayiintaas qofna ku nool yihiin, waxaa gacanta mariyay Jabaan. cid markii ay dagaal sokeeye gasho iscuntana waxaa sahlan in la qabsado. Jabaan gumaysi aad iyo aad u xun ayuu Shiinaha mariyay, malaayiin Shiinays ayaa waddooyinka lagu toogtay. gumaad wadareedyo laga naxo ayuu Jabaan ka geystay intii uu gumaysanayay Shiinaha. aqwaamtaas indhayarta Kuuriyaanka, Jabaanayska iyo Shiinayska ma ahan dad naxariis leh markii laga hadlayo dagaal iyo cid ay qabsadaan ama ay gumaystaan. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u sacbatumaan canuga waqooyiga Kuuriya, ayagoo isla Maraykanka ayuu lid ku yahay. haddii ummadahaas ay haysan lahaayeen awoodda Maraykanka ama galbeedka oo kale, dhulka qof socda ugumay tegi lahayn. Tataarka ayay wada dhasheen, wayna isu eg yihiin. waana mid taariikhda ku qoran gumaadkay Jabaan ka geysatay bariga Aasiya. Jabaan intaanan lagu jabinin dagaalkii labaad ee adduunka, waxay cadaabkan ugu xun marin jirtay ummado badan sida Filibiiniyiinta, Shiinayska, qayb ka mid ah Malaysiya. ilaa maanta Filibiiniyiintu mayna hilmaamin cadaabkii iyo gumaadkii uu mariyay sargaalkii Jabaanayska ee Tomoyuki Yamashita intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. inaan qadiyadaas ku sii dheeraada ma rabo, laakiin waxaad ogaataan in indhayartaas wathaniyiinta ay ka naxariis xun yihiin galbeedka Masiixiga. sidaas darteed wax xikmada kuma jirto inaan u sacbatunno nidaamka shuuciga dulmiga badan ee waqooyiga Kuuriya. 1 Oktoobar 1949 hogaamiyihii shuuciga Shiinaha ayaa ku dhawaaqay dhalashada Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha oo ah nidaamka maanta ka jira dalkaas. 1958 hogaamiyihii Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay olole loogu magac daray hor u kaca weyn, laakiin waxaa ka dhashay natiijooyin aan la filayn. waxaa burburay nidaamka waxbeeridda Shiinaha, waxaana ka dhashay musiibo la magac baxday gaajadii Shiinaha ay weynayd. malaayiin Shiinays ayaa gaajo u dhintay, waxaana la joojiyey mashruucaas fashilmay. Shiinaha si uu muujiyay in ummadda tiradaas leh ay haysato hub looga baqo, ayuu 1964 tijaabiyey bomba nukleera, wuxuuna ka mid noqday waddamada haysta hubkaas sida wax u burburiyo. taleefanka iPhone ee ay soo saarta shirkadda Apple ee Maraykanka ma og tahay in lagu sameeyo Shiinaha ama warshadaha sameeya ay ku yaalaan Shiinaha. markaan leenahay iPhone ulama jeedno kuwa bugta Shiinaysku koobiyayaan ee waa kan asalka ee shirkadda Apple. marka koobaad qalabka ay samayso Apple, gaar ahaan taleefanada casriga ee iPhone-ka, waxa uu ka samaysan yahay waxaa laga keenay meelo badan oo daafaha dunida. taleefankaas aad gacanta ku hayso, qalabka uu ka samaysan yahay waxaa lagu sameeyaa meelo kala duwan. tusaale, shaashadda moobilka iPhone-ka waxaa lagu sameeyaa Jabaan, gaar ahaan waxaa samaysa shirkadda Sharp. sidoo kale shirkadda LG ee Kuuriya ayaa shaashado u samayso shirkadda Apple, gaar ahaan taleefanadeeda iPhone-ka. qalabka kale ee ku jira gudaha taleefanka waxaa lagu sameeyaa Taiwan, gaar ahaan waxaa samaysa shirkadda TSMC. haddaba maadaama inta badan waxa uu ka samaysan yahay moobilka iPhone-ka lagu sameeyay Aasiyada Bari, waxaa adag in alaabtaas loo raro Maraykanka si halkaas la isugu geeyo, waana arrin u baahan balaayiin lacaga qaadidiisa. haddaba shirkaddu waxay aragtay in Shiinuhu warshado iyo shaqaale raqiisa leeyahay, joogaanna injineero khibrad sare leh. sidaas darteed waxaa laga maarmaana in qalabka moobilka ka samaysan yahay lagu kulmiyo Shiinaha si ugu dambayn loo soo saaro moobilkaas tayada leh. haddaba waa maxay shaqada xarunta weyn ee shirkadda ku taala California, Maraykanka, haddii moobilka lagu sameeyo Aasiyada Bari? shirkaddu waxay samaysaa ama hawsheedu tahay waxa ugu muhiimsan oo ah dhiseen garaynta ama dejinta naqshadda moobilka inta aanan la samaynin, horumarintiisa, sidoo kale suuqgeynta iyo nidaamka uu moobilka ku shaqeeyo. heer uu Trump yidhi, waxaan ku taamayaa ama rajaynaya mar uu la hadlayay mas-uul ka tirsan shirkadda Apple inaan arko warshadaha shirkadda Apple oo ku yaala gudaha Maraykanka laga soo rarana Aasiya. dhinaca kale waxaa baryahan dambe soo tarayo dhaleecayn xun oo loo jeedinayo shirkadda Apple oo lagu eedeynayo
in warshadeeda Shiinaha ee moobilada lagu sameeyo ay ka jiraan xaalada addoonsiga, in kumanaan shaqaale Shiinaysa wax u eg addoonsi uga shaqeeyaan halkaas, duruufo qallafsanna ka jirta halkaas. mid ka mid ah warshadaha shirkadda Apple ee Shiinaha waxay gaaraysaa 9 garoon kubadeed oo la isku daray, waxaana ka shaqeeya 50,000 oo qof oo 16 saac oo xiriir hawshoodu tahay isku xiridda kumanaanka qalab ee moobilka ka samaysan yahay. maalgashiga iyo saamaynta dhaqaale ee Shiinaha waa mid maalinta ka dambaysa soo taraya. Shiinuhu Afrika oo ah dhul aad u dihin ayuu gelinayaa maalgashi xooggan. sidoo kale dhinaca siyaasadda wadamo badan oo ah xulafada Maraykanka ayaa u arka in Maraykanku kaliya fiirsanaya maslaxadiisa, saaxiibtinimo joogto ahna lahayn. sidaas darteed waxaad arkaysaa in wadamada qaar dhinaca Shiinaha u ruqaansanayaan, sida Kuwait iyo kuwa kaloo Carbeed. waxay leeyihiin Maraykan inaad hoos taagnaato xiriirkiinu ahaado addoon iyo sayidkii waxaan ahayn ma yaqaano. waa kan Sacuudiga xulafalaha ku qasbay inuu bixiyo 400 bilyan oo dollar. sidan ayuu u hadlay Trump markuu ka soo laabtay Sacuudiga. We had to negotiate. If you spend billions of dollars, billions, on having things manufactured in our country with our jobs and our workers for your country, and hundreds of billions of dollars was spent and given to American companies who are going to make American products. sida muuqata Shiinaha waa quwadda soo socota dhinac walba, laakiin ma ahan mid naqusaysa, waa mid Shiinaha uu leeyahay wax maslaxadiisa ka baxsan uma socdo. dhinaca ciidanka, Shiinaha waa waddanka caalamka kaalinta koobaad ku jira dhinaca tirada ciidanka lugta. kama hadlayno horumarka teknoolojiyadda military ee waa tirada ciidanka. ciidanka dhulka Shiinaha wuxuu gaarayaa 1,600,000 oo askari, laakiin markii lagu daro kuwa badda, kuwa cirka, wuxuu gaarayaa 2,300,000 oo askari. waxaa sii dheer malaayiinta kaydka. dhinaca ciidamada ugu xooggan caalamka kaalinta saddexaad ayuu ku jiraa, waxaana ka horeeya Maraykanka oo kaalinta koobaad ah iyo Ruushka. موضوعنا maanta intaas ayuu ku eg yahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.